kulankani oo habeennimadii xalay ka qabsoomay hotel rays ee magaalada Boorama ayaa waxay ujeedadiisu ahayd kulan lagaga hadlayay dardargelinta iyo horumarinta adeegyada caafimaad ee isbitaalka Al-Hayaat ee magaalada Boorama taasoo iska kaashadeen jaamacadda Amuud iyo sidoo kale hay'adda samafalka Amuud Foundation waxaana munaasabadani ballaaran ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay kamid ahaayeen bahda caafimaadka gobolkani Awdal waxaana madashaasi ugu horreyn hadalka iska daba qaatay qaar kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Amuud iyo sidoo kale xubno tirsan hay'adda Amuud Foundation waxayna tilmaameen jaamacadda Amuud iyo hay'adii dhistay Amuud Foundation ee noo qalabaysay noo dhiso ilaa imika taageeradeedii wali ka bixin oo taageertay labaduba waxay go'aansadeen inay meesha isku tagaan dhismihiisa inta uu leeyahay in ku dhow lagu daro dhawaana uu bilaabay oo lagu daraya bulshada ku dhaqan awdale lacagta waxay u baxayeen India iyo wadamada fogfog qalimada la sameeyo oo qaarkood $100,000 lagu sameeyo Mareykanka iyo wadamada horumaray halkan waxa laga qaadaa lacag aan dhanay $400. Isbitaalka waxa ku jirtay gabadh dhagax oo kelida laga saaray gabadhaas waxay tiri waxa la igu soo baaray Saudi Arabia waxa la igu yiri waxa lagu qalayaa 8,500 fadliga Ilaahay waxa lagu qalay isbitaalka Hayaat 150 إلهي أنو حمدين الحمد لله هدي دب لو سو نوليي oo la leeyahay dhakhtarka sidii hore wax loogu qabanayay si ka badan baa wax loogu qabanaya waa Ilaahay mahadi dhakhtarka inaga iska leh gobolka community-ga iska leh jaamacadda iska leh Ilaahina subhanahu wa ta'ala wakiilaha wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha hada istiraahdan ni'amka Ilaahay idin siiyay ad koobtaan marnaba koobi maysaan waxa loo baahan yahay in marka jugriga aan badino aan gacmaha aan isqabsano Amuud Foundation runtii waxay ahayd cidii kanta fikirka in la asaaso isbitaal oo referral hospital oo teaching hospital oo yarata jaamacadda Amuud imika waxa bilaabmaya waxa weeye laba kaclayn in lagu sameeyo marka isbitaalka oo halkii hore u taagnaa hadii magaranaysa ay noqotay service kooban ama loo baahday service kooban ka dheeraada indii markaas loo soo cusboonaysiiyo tamarka qayb baan runtii aan ka haynaa dhanna Amuud Foundation iyo jaamacadda Amuud iyo Al-Hayaat isbitaalka laftigiisa isbitaalka Al-Hayaat waxa weey talaabadii labaad waxyaabihii basic iyo dhawaan la sameeyay hadda talaabadii labaad ayaa inaan hadda qaadnaa sababta isbitaalka loo sameeyay waa sida bukaanadii u baxayay dibadda in halkan lagu serve gareeyo bahdan caafimaadka ee jaamacadda lafteedu haddayna yiraahdeen isbitaalka Al-Hayaat wajh cusub aan u yeelaynaa runtii waa dadaalaynaa wixii qalab ka dhimanna waa soo kordhinaynaa dhakhaatiir nagu filan fiican waa joogaan kuwa fiicanna waanu keeni doonaa iyo xataa shaybaadhadii iyo waynu wada hagaajin doonaa inta hadda joogta haddii wax ka badan loo baahdo Absalaan Saha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama